السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا صاحبada qiimaha badan ee ku xiran janaalka Ibn Abubakar waa maalin kale iyo su'aalo diini ah. Su'aalihii hore way ka duwan yihiin. Okay, waxaan soo qabanaynaa qofka koowaad. La socod wanaagsan. Okay, haddana waxaan soo qabtay qofka koowaad. Soo dhawow magacaaga oo saddexan. waan dhawahay magacaygu waa Shucayb Ilyas Abubakar. Shucayb, soo dhawow ayaan ku leeyahay. Waa barnaamij su'aal diini ah. Aan ku weydiin doono su'aalo. Sidee u aragtaa barnaamijkaani? Wallaahi si fiican u arkaa wallah. Okay, waxaad sheegtaa su'aashaadii koowaad dhagax fur. Waxaad sheegtaa saxaabigii dilay aabihii oo gaal ahaa dagaalkii Badr. Mar labaad haddaan kugu celiyo, waxaad sheegtaa saxaabigii dilay aabihii oo gaal ahaa dagaalkii Badr. Waxaan filayaa inaad ka jawaabi doonto insha Allah. Su'aashaas haddaan ka jawaabo waxaa waaye Abu Ubayda bin Camir. Okay, su'aashaadii labaad. Su'aashaan waa saxtay. Midda labaad dhagax fur. Kumuu ahaa saxaabigii sunta cabay ee yiri bismillaah ee aan waxba ku noqon. Mar labaad haddaan kugu celiyo, kumuu ahaa saxaabigii cabay sunti ee yiri bismillaah ee aan waxba ku noqon. Waxaan filayaa inaad ka jawaabi doonto insha Allah. Waxaa su'aasha labaad waa Khalid bin Walid. Okay, su'aashaadii labaad waa aad ka jawaabtay. Okay, Shucaybow, sidee u aragtaa su'aalahan ku weydiiyay oo diini ah? Wallaahi si kama wax kala warkaa. Okay, inaan is leedahay dadka kale way ka faa'iideysanayaan su'aalahan. Haa. Okay, waxaan ku leeyahay soo dhawow. Wadhawaay. Okay, haddana waxaan soo qabanaynaa qofka labaad. Soo dhawow magacaaga oo saddexan. waa barnaamij su'aal diini ah. Waxaan ku weydiin doonaa saddex su'aal oo ku saabsan diini ah. Marka isku day kartaa jawaabi kartaa is leedahay. Okay, Abubakar, su'aashaadii koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaca caadiga ah ee la oran jiray Abu Hurayra. Mar labaad haddaan kugu celiyo, waxaad sheegtaa magaca caadiga ah ee la oran jiray Abu Hurayra. Mar saddexaad haddaan kugu celiyo, waxaad sheegtaa magaca caadiga ah ee Abu Hurayra. Waxaan filayaa inaad ka jawaabi doonto insha Allah. Okay, su'aashaadii koowaad waa aad ka jawaabtay. Midda labaad dhagax fur. Waxaad sheegtaa magaca saxaabigii Abu Dharr al-Ghafari. Mar labaad haddaan kugu celiyo, waxaad sheegtaa magaca saxaabigii Abu Dharr al-Ghafari. Mar saddexaad haddaan kugu celiyo, waxaad sheegtaa magaca saxaabigii Abu Dharr al-Ghafari. Waxaan filayaa inaad ka jawaabi doonto insha Allah. su'aashan jawaabteeda waxaa weeye waa Jundub bin Junaada. Ku celi bal codkaadana kor u qaad. waa Jundub bin Junaada. Maasha Allah, waa aad ka jawaabtay su'aashaadii labaad. Mid saddexaad dhagax u fur. Waxaad sheegtaa magaca Abi Ayyub al-Ansari. Mar labaad haddaan kugu celiyo, waxaad sheegtaa magaca Abi Ayyub al-Ansari. haddaan kugu celiyo, waxaad sheegtaa magaca Abi Ayyub al-Ansari. magaca Abi Ayyub al-Ansari. Waxaan filayaa inaad ka jawaabi doonto insha Allah. waa Khalid bin Zayd. codkaada kor u qaad bal. waa Khalid bin Zayd. Okay, Allah ku xifdiyo aan ku leeyahay. Soo dhawow. Okay, weli waxaan sii dhex mushaameynaa barnaamijkii su'aalaha diiniga ah. Waxaan soo qabanaynaa qofka saddexaad. Soo dhawow walaal, magacaaga oo saddexan. Axmed Maxamed Aweys. Axmedow, soo dhawow ayaan ku leeyahay. waan dhawahay. Axmedow, maanta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aalo diini ah. Kulley waxaa khamiiskaaga iyo shaalkaagana waa wadataaye. Su'aalahan ku weydiin doono macnaha waa ka jawaabi karaa ma is leedahay? saas camal. Okay, waxaad sheegtaa casharatul mubashiriina biljanna. waa Abu Bakr Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Abi Ubaydillah, Abi Ubayda Amir bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zayd, Sa'ad bin Abi Waqqas. Maasha Allah. Su'aashaadii koowaad waa aad ka jawaabtay. Midda labaad dhagax u fur. Midda labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa saxaabigii baryadiisa Allah aqbali jiray. Mar labaad haddaan kugu celiyo, waxaad sheegtaa saxaabigii baryadiisa Allah uu aqbali jiray.
mar saddexaad haddaan kugu celiyo waxaad sheegtaa saxaabigii baryadiisa allah uu aqbali jiray waxaan filayaa inaad ka jawaabi doonto insha allah وسعد بن أبي وقاص. okay su-aashaadii saddexaad dhigaa fur waxaad sheegtaa saxaabigii ee qur-aanka lagu sheegay mar labaad haddaan kugu celiyo waxaad sheegtaa saxaabiga keliya ee qur-aanka lagu sheegay mar saddexaad haddaan kugu celiyo waxaad sheegtaa saxaabiga keliya ee qur-aanka lagu sheegay waxaan filayaa inaad ka jawaabi doonto insha allah وزيد بن حارث. رضي الله عنه أحمد صدح هذا السؤال وأنت جوابتي سؤالها سيدي وأركتها أو كويدي سؤالها دينية هذا يوفي عيين. هذا يوفي عيين مركز دتك أو سؤالها عمل أي سنة قوانين محقبورين لهاد إني كفايدستان ما شاء الله صبر برايان كلها سود وأحمد وعنده باي